Idi Amin hogaamiyaashii dowladaha ee ay isfahmeen aadna isugu soo dhawaadeen waxaa ka mid ahaa madaxweynihii Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad sanadkii 1973 Idi Amin Dada waxa uu magaalada Muqdisho kaga qayb galay munaasabadda xuska 21 Oktoobar. Midowgii Soofiyeed, Jarmalka Bari iyo dalal kale oo hanti wadaagga rumaysan ayuu aad u soo dhaweystay oo ay xulafo noqdeen. sidoo kale waxa uu isu muujiyay in uu yahay halgamaa u taagan soo dhicinta iyo difaacidda xuquuqda dadka madow meel walba oo ay dunida ka joogaan, Carabta iyo Muslimiinta. goob kasta oo uu ka istaago iyo khudbad walba oo uu jeedinayo, xitaa haddii uu joogo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kan midowga Afrika iyo golayaasha kaleba waxa uu ka sheegi jiray qadiyadaasi ku dhisan in uu soo dhaweysto Carabta, dadka madowga ah iyo Muslimiinta. sidoo kalena weeraro oo dhaleeceeyo Israa'iil, reer galbeed iyo dadka aan muslimka ahayn. Idi Amin arrintiisu hadal oo kaliya kuma koobnayn, wuxuu marar badan ku dhaqaaqay ficillo aysan ku dhiiran hogaamiyaal badan, dadka badankiisna ay u arkeen wax aan caadi ahayn. wayba ahayd tii ugu xiisaha badnayd waxay dhacday 27 bishii Juun sanadkii 1976. diyaaradda Air France Flight 139 oo ka baxday Tel Aviv kuna wajahnayd Paris ayaa iyada oo ku hakatay Athens oo Greek ah waxa afduubay koox hubaysan oo ka kooban 4 ruux, 2 u dhashay Falastiin iyo 2 u dhashay Jarmal. duuliyaha diyaaradda waxaa lagu qasbay in uu ku leexdo garoonka diyaaradaha Entebbe ee dalka Uganda. rakaabka diyaaradda saarnaa oo ay tiradoodu ahayd 248 qof ayaa badankood waxay ahaayeen Israa'iiliyiin. ku dhawaad 100 ruux Israa'iiliyiin ahaa iyo shaqaalihii diyaaradda ayay soo reebteen, intii kale ee diyaaradda saarnayd way iska fasaxeen. kooxdaasi diyaaradda afduubatay waxa ay taageero ka helayeen hogaamiyaha Uganda Idi Amin Dada. wuxuu kooxdaasi afduubayaasha ah u ogolaaday in dalkiisii ay ku haystaan diyaaradda iyo dadkii ay soo afduubeen, sidoo kalena in afduubayaasha la siiyo wixii tasiilaad ah oo ay u baahdaan. arrintaas lagu daray ficiladii iyo hadalladii kale ee uu Idi kaga soo horjeeday reer galbeedka waxay xoojisay sii kala fogaanshaha iyo nacaybka labada dhinac, waa Idi Amin iyo madaxda dowladaha reer galbeedka. Israa'iil dadka laga haysto in ay xoog ku soo furdaamiso waxaa kaga adag oo ka culus in ay wada hadal ka gasho, maxaa yeelay horta kooxda wax afduubatay hal meel kama soo wada jeedaan, hal talisna lagama wada maamulo. labada Falastiiniyiinta ah waxay ka tirsan yihiin ururka xoreynta Falastiin, labada Jarmalka ahna waxay ka tirsan yihiin urur lagu magacaabo unugyada kacaanka. waxa kaliya ee madaynayay waxay ahayd nacaybka ay Yahuudu u qabaan. taas darteed Israa'iil waxa ay go'aansatay in ay xoog ku soo furato. waxaa marka hore la ururiyay wixii xog ah oo ku saabsan qaab dhismeedka garoonka Entebbe. waxaa xogta laga helay shaqaale hore oo garoonkaasi wax ka dhisay, dad marar badan ka dhoofay garoonka iyo sirdoonka dowladda Kenya. 30 Juun ilaa 3 Julaay 1976 Israa'iil waxa ay diyaarinaysay qorshaha howlgalka oo ka bilaabanaya safar qaadan doona 4000 kiiloomitir oo hawada ah. saqdi dhexe habeenkii afaraad bishii Julaay 1976 ku dhawaad 100 askari kumaandoos Israa'iil ah oo uu hogaaminayay Jonathan Netanyahu, walaalka ka yar ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu, ayaa ka degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah Jomo Kenyatta ee dalka Kenya. kadibna waxa ay soo qaateen kolonyo baabuur oo u eg kuwii uu isticmaali jiray madaxweyne Idi Amin Dada. iyaga oo iska dhigaya kolonyo madaxweynaha galbinaysa ayay garoonkii soo galeen. xilligu waa saq dhexe, isgaarsiintu sida ay maanta tahay casri uma aha, umana fududa. qofka la isu soo ekaysiiyey in la galbinayo waa madaxweynihii kaligii taliska ahaa oo cidna aysan suurtagalba u ahayn in ay hor istaagto si ay u hubiso. ma Idi Amin baabuurtiisii ayaa la hubin karaa? maya, suurtagal maaha. askartii markii ay gudaha u galeen garoonka oo weliba diyaaraddii afduubnayd ay u dhowaadeen ayay rasaasta bilaabeen. howlgalku waxa uu qaatay muddo in ka yar 90 daqiiqo ah. 102 ka mid ah 106 maxbuus oo ay afduubayaashu haysteen ayaa la soo furtay. dhammaan 4 ruux ee afduubayaasha waa la dilay. sidoo kale waxaa dhacdadaasi ku dhintay sarkaalkii hogaaminayay kumaandoosta Israa'iil Jonathan Netanyahu. ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa ay u ahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu murugada iyo xanuunka badnaa.
maxaa yeelay waxaa Uganda lagu dilay walaalkiisii ka yar. ciidamada Uganda qaar ayaa halkaasi iyagana lagu dilay, inkastoo tiradoodii la qariyay. haddana waxaa la sheegaa in 45 askari ay ahaayeen kuwa ku dhintay howlgalka. diyaaradihii Uganda ee garoonka yaalayna qaarkood waa la burburiyay. halkaas ayuu ka laba qarxay ciilkii ay Israa'iil u qaaday Idi Amin Dada. dhankiisa Idi Amin Dada waxa uu aad uga carooday in dowladda Kenya ay kumaandoosta Israa'iil u ogolaatay in dalkeedii loo adeegsado meel Uganda laga soo weeraro. sidoo kalena sirdoonka Kenya ay bixiyeen xogta iyo warbixinta qaab dhismeedka garoonka Entebbe. si uu Kenya uga arguto waxa uu amray in la laayo shacab Kenyaan ah oo dalkiisii ku noolaa. boqolaal ruux Kenya u dhashay ayaa sidaasi lagu dilay gudaha Uganda. xiriirkii Kenya iyo Ugandana halkaas ayuu ku xumaaday. Idi Amin markan waxa uu hogaaminayaa dowlad ay dowlado badan colaad u qabaan, ciil iyo cadaawad daranna loo hayo. isagu waxa uu taagan yahay yeelkadood. maalin kastana Uganda waxa uu u dhaqaajinayaa halkii uu isagu u arko ee uu habeenkii ku fakaro. wax uu u aabayeelayana ma jirto. markan waxa uu ku fakiray in uu sii xoojiyo dhismaha iyo qalabaynta ciidamada. wuxuu u baahday in uu hub ka helo dowlado uu ka mid yahay midowgii Sofiyeedka. laakiin Uganda mushkiladeeda waxaa ka mid ah ama ugu weyn in ay tahay dowlad xiran, yacni dowlad aan bad lahayn oo dhan kasta ay wadamo kaga xiran yihiin. waxay adeegsataa xeebaha wadamada deriska la ah. wadamadaasna badankood xurguf ayaa kala dhaxaysa. sanadkaas 1976 shixnado hub ah oo Idi Amin uu ka soo iibsaday midowgii Sofiyeedka ayaa laga soo dejiyay degada Kenya. waxaa la rabay in si qarsoodi ah iyaga oo konteenaradoodii ku jira laga soo daabulo halkaas oo Uganda la soo geliyo. laakiin dowladda Kenya oo ka warheshay ayaa hubkii la wareegtay. Idi Amin oo markii horeba ka ciil qabay in Kenya ay Israa'iil u ogolaatay dalkeeda in laga soo weeraro Uganda ayaa haddana hub u soo socday kala wareegtay. si uu Kenya dagaal ugu qaado waxa uu sheekada ka bilaabay in uu sheegto dhul ka mid ah Kenya. weliba dhulka uu sheegtay waxa uu 30 kilomitir kaliya u jira magaalada caasimadda ah ee Nairobi. wuxuu ciidan geeyay gobolka Busia iyo agagaarka harada Victoria. Kenya oo arintaasi ka hortagaysa ayaa markiiba ciidan iyo gaadiid dagaal u daabushay xuduudka ay Uganda la wadaagaan. intaas kadib Uganda ciidankeedii way hakiyeen howlgalkii. sidaas darteed dagaal toos ah ma dhicin, laakiin xiisadaasi waxa ay abuurtay cabsi weyn oo ku saabsan dagaal weyn oo ka qarxa gobolka. markan waxaa loo sii dhawaanayaa gabagabada xukunkii adkaa ee Idi Amin Dada. maalinba maalinta ka dambaysa ficilada uu ku dhaqaaqayo iyo go'aanada uu gaarayo ayaa u sii riixaya bardhamaadka maamulkiisa. 1977 waxaa dalka ka soo xirmay xuduudihii deriska ee ay badeecad uga soo geli jirtay. dagaalka qabow ee u dhaxeeya hanti wadaaga iyo hanti goosadka ee ay kala hogaaminayaan Sofiyeed iyo Mareykan ayaa Sofiyeedku uu maalinba maalinta ka dambaysa ku sii jabaya. taas darteed waxaa sii adkaanaya in uu Idi Amin taageero ka helo Sofiyeed. Soomaaliya oo uu saaxiib la ahaa waxay ku jirtaa dagaalkii 77 ee ay Itoobiya la gashay. markan Soomaaliya iyada ayaaba garab u baahan oo waxaa garabkeedii ka baxay Sofiyeedkii ay xulafada la ahayd. Liibiya oo Uganda taageertana waxay laadahay meel ay Uganda wax u soo mariso. maxaa yeelay dalalka deriska badankood bad, hawo iyo dhulba way ka xirteen Uganda. Uganda waxay gashay sicir barar, shaqo la'aantii oo sii baahday iyo nolol xumo. dhaqaalihii ayaa dhulka galay. saraakiishii iyo madaxdii u dhaweyd Idi Amin ayaa markan bilaabay in ay ka soo horjeestaan. shacab badan oo lagu eedeeyay in ay aragti ahaan maamulkii Idi Amin u dhaliileen ama ay uga soo horjeesteen ayaa la laayay. qaarkood la waayay meel ay ku dambeeyeen, kuwa kale xabsiyada laga buuxiyay. gabood fallo badan ayaa gudaha Uganda ka dhacay liajli Idi Amin oo aragtidiisii la mucaaraday. hay-adaha xuquuqda aadanaha u ololeeya waxa ay sheegaan in 8 sano ee uu Idi Amin talinayay gudaha Uganda lagu dilay dad ka badan 500,000 oo qof. saraakiishii iyo madaxdii gadooday qaarkood ayaa ku biiray kooxihii jabhadda ahaa ee mucaaradka ahaa, weliba fadhigood ahaa gudaha Tanzania. halkaas ayay bilaabeen in ay kaga arinsadaan sidii ay Idi xukunka uga tuuri lahaayeen oo dalkana ula wareegi lahaayeen. intaas markii uu Idi Amin ka war helay waxa uu dowladda Tanzania oo uu madaxweynaha ka ahaa Julius Nyerere ku eedeeyay in ay ku howlan tahay duminta qarannimada Uganda.
waxaa xigtay in ciidamada Uganda uu amar ku siiyey in ay weeraraan Tanzania si dhul halkaasi uga maqan ay u soo dhiciyaan. 21 Oktoobar sanadkii 1987 ciidanka Uganda oo aan dhig la qabta lahayn ayaa xoog kaga gudbay xadka Tanzania. waxay qabsadeen gobolka Kagera ee waqooyiga Tanzania. Idi Amin waxa uu markiiba ku dhawaaqay in wixii hadda ka dambeeya gobolka Kagera uu ka mid yahay dalka Uganda. madaxweynihii Tanzania Julius Nyerere oo aad uga caraysan falkaasi uu Idi Amin ku kacay ayaa ciidamadii Tanzania faray in aysan difaac oo kaliya ku ekaan ee ay weerar ku qaadaan Uganda. bishii December sanadkii 1987 ciidamada Tanzania oo ay barbar socdaan mucaaradka hubaysan ee Uganda ayaa qaaday duulaan saf ballaaran ah oo ay ku galeen gudaha Uganda. labada dhinac baabah ay iska dhigeen. xadka labada dhinac ayay marka hore si weyn ugu dagaalameen. marba dhinac ay isu riixeen, laakiin markii dambe waxaa toos loo jabiyay kuwii Uganda. waa la eryaday. dagaalka xooggiisii waxa uu markan ka dhacayaa gudaha dhulka Uganda. ilaa markii dambe 12 Abriil 1979 ay ciidamadii Tanzania qabsadeen magaalada caasimadda ah ee Kampala. waa xaruntii dhamayd ee uu Idi Amin dawladda uga talinayay. Idi Amin markii uu arkay in ciidamadii la jibiyay wadankana la qabsaday ayuu naftiisii la baxsaday. marka hore waxa uu cararay dalka Liibiya, kadibna waxa uu u wareegay Ciraaq. ugu dambeynna waxa uu saldhigtay oo uu magangeliyo ka helay boqortooyada Sacuudi Carabiya. halkaas ayuu ku soo gabagaboobay xukunkii dabka iyo birta ahaa ee muddada 8 sano ah uu Idi Amin Dada ku maamulayay Uganda. taladii Uganda waxaa majraha u qabtay golayaal isxigxigay oo ku meel gaar ahaa. Yusuf Lule ayaa la doortay 13 Abriil 1979. waa maalmo kadib markii Kampala la qabsaday. ninkaasi waxa uu noqday madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee ugu horeeyay kadib Idi Amin Dada. wuxuu xilka hayay kaliya 68 maalmood. waxaa xilka looga qaaday khilaafyo siyaasadeed iyo arrimo la xiriiray awood qaybsiga. wax u eg 4.5 maanta Soomaaliya ka jira. ninkaasi waxaa ku xigay Godfrey Biniasa. wuxuu talada hayay July 1979 ilaa May 1980. isna waxa uu ahaa madaxweyne ku meel gaar ah. ninkaasi waxa uu isku dayay in uu si gaar ah u maamulo militariga, taasoo keentay in laga shakiyo kadibna laga eriyo xilka. markan taladii waxaa la wareegay gole loogu magac daray golaha militariga Uganda. golahaasi oo uu hogaaminayay Paul Mwanga waxa uu maamulayay May 1980 ilaa December 1980. xubnaha golaha waxaa ka mid ahaa Yoweri Museveni. isaga iyo xubnihii kale ee golaha waxa ay diyaariyeen doorasho guud. waxaana ku soo baxay oo mar kale xilka ku soo noqday Milton Obote. wuxuu kursiga ku fadhiyay December 1980 ilaa 1985. laakiin ninkaasi doorashada uu ku soo baxay waxay ahayd mid aad loogu murmay oo Museveni uu ku eedeeyay in la musuqmaasuqay. waxaana mar kale uu dalku galay dagaal ilaa iyo xukunka lagaga tuuray afgambi ay sameeyeen ciidamada. Yoweri Museveni oo hogaaminayay jabhadda NRA oo laga soo gaabiyay National Resistance Army waxa uu dagaal hubaysan la galay dawladda Obote. wuxuuna ugu dambeyn noqday madaxweynaha Uganda sanadkii 1986. madaxweyne Idi Amin Dadana isaga oo 78 sano jir ah ayuu 16 Agoosto 2003 ku geeriyooday magaalada Riyadh ee boqortooyada Sacuudiga kadib xanuun kaliyaha uga dhacay oo muddo uu sariir la saarnaa. waxaana lagu aasay qabuuraha Ruways ee Sacuudi Carabiya. intaas ayaynu ku soo gunaanadeynaa muuqaalkan tan iyo muuqaalka xiga oo aanu soo qaadan doono mowduuc kale oo xiiso leh. waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah. halkan waa Itaal Media.